kulanti waxaan asxaabe meel walba joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka arrimaha fanka. maanta waxaan soo qaadan doonaa filimka Hustle 4 oo muddo 5 toddobaad tiyaatarada saaran iyo filimka Saake tiyaatarada la saaray Commando 3 iyo qaabka ku furmay. marka hore waxaan soo qaadan doonaa Hustle 4 iyo ganacsiga hadda marayo. filimkan ayaa u dhow in uu gaaro 1 karoor toddobaadkiisa shanaad maadaama ay u aruursan tahay 80 lag muddo 4 maalmood gudahooda. filimkan ayaa sameeyay ganacsi heer sare ah 3 isbuuc ee ugu horeysay, laakiin wuxuu la kulmay hoos u dhac aad u weyn 2 isbuuc ee ugu dambeysay maadaama ay tiyaatarada qabsadeen aflaamo badan. filimkan waxa uu ku dhow yahay inuu ka keeno 80 karoor magaalooyinka kala ah Mumbai, Gujarat, Saurashtra. sidoo kale waxaa ganacsi fiican ka keenay magaalooyinkan aflaamo badan sida Kabir Singh waxa uu ka keenay 87.2 karoor. Yuri Strike wuxuu ka keenay 84.11 karoor. War wuxuu ka keenay 77.42 karoor, halka Hustle 4 uu ka keenay 79.80 karoor. Hustle 4 ayaa maraya 205 karoor waxayna u muuqataa inuu gaari doono ilaa 206 karoor. dhinaca kale, Saake waxaa tiyaatarada India la saaray filimka actionka ee Commando 3 uu hogaamiyaha ka yahay ninka actionka looga haray ee Vidyut Jammwal, wuxuuna ku furmay qaab hooseeyo oo aan laga filinayn. filimkan waxaaba ka bilaabasho fiican filimka Marjafan, kaasoo 2 isbuuc ka hor tiyaatarada la saaray. tiyo jirto in filimka Marjafan heesihiisa ay hid noqdaan, sidoo kalena uu yahay mid jacayl ah. haddaba maadaama uu filimka Commando 3 uu yahay mid action ah, rajo weyn oo sidaas lagama qabo in maanta gelinka dambe saro kac xoogan sameeyo, waayo aflaanta actionka ah sidaas loogama baran. arrinta jirta ee xusida mudan ayaa ah in filimkan labadiisa qayb ee hore aysan jirin mid guuleystay, waayo Commando wuxuu noqday below average halka Commando 2 uu noqday flop. waxaana la sameeyay qayb saddexaad, waxaana ugu wacan in filimkan TV-da uu ka yahay blockbuster halka tiyaatarada uu ka yahay flop, waxaana lacaga lagu qarash gareeyay dib loogu soo celiyay TV-da. sidaas darteed waa filim TV-da ku xoogan balse tiyaatarada uu ka yahay flop. asxaabi waxaa halkaas noo eg warbixinada maanta aan kusoo qaadanay labada filim Commando 3 iyo Hustle 4. fadlan subscribe saar gambalaalkan riix si aad noor kumatid.